Asalaamu calaykum asxaabta markale kusoo dhawaada Sacdiyo cunto karis. Maanta insha Allah waxaan sameyn doonaa digaag oo shawarmada iyo tahini sauce sooska lagu cuno shawarmada. Marka insha Allah koowaad waxaa ka bilaabi doonaa digaag inaan jarjarano. Marka digaaga si jarjarana laba xabo digaaga isticmaalo midda shafka oo macnaha laf la'aanta ah. Marka adiga nooca aad isticmaali kartaa laakiin midda oo laf la'aan inay ahaataa muhiim ah. Marka sida artidna u jarjara kartaa ani dheer u jartay oo saaid u sii yaryareeyay. Marka adiga kugu xirantaa sida u jarjaranaysid. Marka digaaga intaan saas marka u jarjartay waxaa diyaarsan doonaa digaag wixii lagu qasi lahaa. Marka waxaa weel ku soo shubtay laba qaado iyo haaf oo caanaha fadhiyo ama yogurt saa u taqaanid. laba qaado oo weyn iyo haaf ku soo shubtay kadibna inta waxaa igu diyaarsan sinjibiil iyo tuun laba xabo tuun iyo jab sinjibiil isku soo shiiday kadibna xawaaji duuduuba isticmaalay oo shiidan qaadada yarta halkeeda ama qaadada weynta afkeeda hore ta isticmaali kartaa kadibna filfish shiidan oo madowda isticmaalay ayadana sidoo kale hal qaado yariis kadib geedkan oo asidna sidoo kale carfinta oo shawarma ku qoran tahay ayaa isticmaalay hadaadan heli karin qasab maaha in isticmaashid waa iska dhaafi kartaa sidoo kale hal qaado ku darsaday oo yariisa kadibna basal shiidan oo dukaamada lagu gado basasha shiidan oo dukaamada lagu gado ayaa ku soo shubtay iyo waxaa ku soo shubtay barbarooni shiidan. Barbarooni shiidan qiyaastaada ku xiran tahay. Ani hadeertan wax yar ku shubay hadhowna waa idin tusi doonaa wax yar ku sii dul wax yar ku shubana. Marka barbarooni shiidan ku shubayna waxaa ku shubay wax yar saliidana hal qaadada cuntada lagu cuno oo buuxda oo saliid saytuun ku shuban kartaa saliidana cadayna waa isticmaali kartaa saytuunkana waa isticmaali kartaa saliida artida isticmaali kartaa. Kadib marka inta si fiican isku la qasay digaaga ayaa ku soo shubtay digaaga si fiican u dhex gelinaa caanaha fadhiya iyo waxyaalaha carfinta dhan iyo midi kale waxaa idinka hilmaamay inaa idin tuso cusbo ku darsaday marka maraq digaag ama cusbo ku darsan kartaa haddana waa kana sida u jeedin barbarooniga wax yar ku sii daray barbarooni iyo basbaaska gaduudan xitaa waa ku darsan kartiin hadaa basbaas rabtiin inaad ku darsatiin laakiin aniga ma ku darsanin waxba basbaas marka kadibna marka intaas isku qasay si fiican isku dhex geliyay dabool la saara doonaa insha Allah meel iska dhigaa 1 saac ilaa 2 saacadood meel ay ooleysaa marka intan waxaa ku sii diyaarsanaa insha Allah tahini sauce lagu cuno shawarmada marka inta waxaa ii yaalo mayonnaise marka mayonnaise waxaa isticmaali doonaa insha Allah 2 qaado mayonnaise kadibna hal qaado oo caanaha fadhiyo oo ama yogurt u taqaanid ani inta waxaa isticmaalay geedkaas tahini ay ku qoran tahay marka adaa haysanin waxaa sameyn kartaa sisin ku darsan kartaa sisin laga sameeyay tahiniga marka sisin inta artida ku darsan kartaa qaado mise 2 qaado kadibna jab liin dhanaan iisoo aamirtay ayaa ku shubtay kadibna filfisha madowda oo shiidan qaadada afkeeda hore taa ku soo shubtay saa u jeedin kadibna wax yar cusbo ku shuba doona insha Allah cusbadana intaas ku shubana waa waliba intaas wax yar ka sii reebay marka cusbada dhadhankeeda adeeg ugu xiran tahay iyo hal xabo tuuntan hal xabo waa ka badsan kartaa hadaa ratid iyo saliid saytuun sidoo kale 2 qaado oo yar ku shubtay marka intaana si fiican iskula shiidaa marka sooska dhan intaas ay ka samaysan tahay marka isku shiidid intaas si fiican iskula shiidid waxaa sameynaysaa weel ku shubanee filinjeerka iska gashan kartaa ama meel iska dhiga kartaa inta oo digaaggaagii waxaa dhan ku sii diyaarsamayo kana tahini sauce markaa samaystid meel iska dhigi kartaa insha Allah
waa kana weelkaasaa ku shubay markaa ku shubayna filinjeerka iska sii gashtay marka aniga hadeertaan shawaarmada rootigeeda guriga ku samaystay hadaa rabtid adiga waa soo gadan kartaa laakiin ani ma ka gaarin hadeertaan inaa idin duubo sida u sameeyay macnaa waxaa ku dardaray laakiin hadaa rabtiin video gooni ah insha Allah idinkaga soo sameyn karaa marka hadeertaan inta waxaa ku karsan rabaa digaagii oo maaragtay oo meel dhigtay 2 saacadood meel ii taalay marka hadeertaan waa kana weelaa soo qabsaday saliid yar ku shubay wax yar saliid saytuun ku shubay kadibna maaragtay digaaga ayaa ku shubay daboola saaray marka waxba biyo ma ku karinay biyo maaragtay digaaga iyada dhalayso biyahaas la ku karina insha Allah 10 ilaa 15 daqiiqo 10 ilaa 15 daqiiqo oo dab dhexdhexaad ku kari insha Allah waa kana halahaas oo biidan iyada dhashay digaaga marka ana waxba biyo ma ku shubin maanta oo dhan maaragtay qaando gali insha Allah daboolna saaro si oo maaragtay daboolka marka oo saarnayna biisaas ma ka soo baxaayo laakiin daboolka hadaa saartid biyo fiican oo ku dhala oo ku karsami karta digaaga marka waa kana hada digaaga waxa ii saarnayday 10 iyo 3 daqiiqo meelahaas camal ay saarnayday way ii qalashay dabka ka dajinaa marka intan waa kana waxaa ku sii sameysanayaa rootiga ama ceeshkii oo loogu talagalay shawaarmada in lagu cuno marka asxaabta ceeshkii oo loogu talagalay shawaarmada waa kaasa waa ii diyaar digaagii waa ii diyaar ansalaatadii waa soo jarjartay waa ii diyaar sooskii la marsanayna sidoo kale waa idin tusay sida loo sameynayo marka waxaa sameynaa sidaas u marmari doonaa tahini sooskaas sidaas u marmarina hadaa ratidna basbaasna waa marsan kartaa basbaas gaduud aa marsan kartaa insha Allah laakiin aniga waxba basbaas ma iska marinay macnaa wax basbaas ma ku cuni rabe laakiin adiga hadaa ratid adiga kugu xiran tahay waa marsan kartaa insha Allah kadibna digaagii aa soo sameystay ayaa ku soo shubtay digaagana qiyaastiisa inta ku shubanaysid adiga kugu xiran tahay hadaa rabtid waa ka badsan kartaa hadaa rabtid wax dhexdhexaad ku shuban kartaa laakiin waxaa loo baahan yahay inay hadhowti marka wax dhan ku shubatid inay ku laabmi karto shawaarmada laakiin hadaa saaid ugu buuxisid ma ku laabmayso marka insha Allah wax dhexdhexaad ku shubo kadibna waxaa sameyn doonaa marka sidaas wax dhan iskugu shubay waa laabi doonaa marka waxaana ku laabi doonaa geedkaas bacdaas oo cad oo saxanka oo foornada markii la gelinayo oo la saaro marka macnaha rooti mas wax duwanaysid bacda oo maaragtay oo la saaro saxanka foornada waaye asiga ayaa macnaha bacdaas jab ka soo jartay marka waa ku laabaa si aysan shawaarmada iyo kala daadanin waa kana sidaas u sameeyay aad iyo aad ayayna u fududahay asxaabta waxaa rajeynaa inaad ka hesheen videoga insha Allah hana hilmaamina in asxaabtiina familkiina la sii share gareysiin sida ayaga nooga faa'iidaan asxaabta hadda channelkayga ku cusub tihiin subscribe ka haga hilmaamina sida ula socotiin wax walbo aan mustaqbalka soo dhigo insha Allah marka subscribe saartidna ha hilmaamin inaad gambaleelka sidoo kale taabsatid si oo mar walbo video markaa soo dhigo kugu soo dhaco insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sidaad igula socotiin waxaan kulmi doonaa videoga xiga insha Allah asxaabta khayr iyo caafimaad waa idin rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh